munaasibadani loo qabtay in ka badan 200 oo arday oo ka qalin jabiyay kuliyadaha kala duwan ee ay bixiso Jaamacada Galis faraceeda magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland madax dhaqameed waalidiin iyo xildhibaano ka kala tirsan golayaasha guurtida iyo baarlamaanka ugu horeynba munaasibadani waxa ka hadlay gudoomiyaha Jaamacada Galis faraceeda magaalada Burco Professor Abdihakiin Maxamed Cabdullaahi iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadaasi 206 arday ka qalin jabiyay Jaamacada Galis waa difacad toddobaad ka qalin jabisay Jaamacada Galis saybteeda Burco 2010 ayaa halka laga aasaasay iyadoo la helay daraasad lagu sameeyay baahida dhabta ah ee markaa ka taagnay ee loo baahnaa in la helo jaamacad gaar ahaan Jaamacada Galis marka lagu daro 206 arday waxa ka baxay in ku dhow 972 arday ayaa ka baxay oo maanta qaybaha kala duwan ee bulshada u shaqeeya degree ICT ugu horeeyay ee engineering waxay ka baxeen Jaamacada Galis waxa kaloo ka baxay public health ugu horeeyay ee gobolka ku barta ee degree ku qaata waxa ka baxay medical laboratory ugu horeeyay oo maanta inaga caawiyo dhammaan shaybaadhada gobolka Togdheer Jaamacada Galis waxay u taagan tahay guusha shacabka guusha dhalinyarada waxaan idin rajaynayaa inaad guulaysan doontaan oo u socon doontaan dalka iyo dadkana wax ka qaban doontaan. May continue at Galis University to undertake higher level. Whatever choice you take, may I remind you of the important role that you could play. Ardayna dhamaantood inay dhamaysteen waajibaadkii looga baahnaa degree koowaad waxaa la yahay dhamaantiin hambaliyo wasiirka wasaaradda macdanta tamarta jaamac Maxamuud Cigaal wasiir ku-xigeenka horumarinta caafimaadka gudoomiyaha dhawrista tayada gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga wadani oo iyaguna madashani ka hadlay ayaa ardayda qalin jabiyay kula dardaarmay inay cilmiga barteen ku toosiyaan bulshada ubadow kuwii lagu baraaro waxa ay barteen ka faa'iideeya waalidkood u abaalguda dalkoodana u abaalguda biidnillaahi tacaala baan idinka baryaynaa waxaanu annaguna ku hawlanahay inaanu mustaqbalkiina dhisno kuliyo bogaadin uga jeedinaya ardayda ka qalin jabisay kuliyadaha kala duwan ee Jaamacada Galis faraceeda Burco leeyahay congratulations hambaliyo qalin farxada hambaliyo baan idin leeyahay dadaalka halka ka sii wada baan idin leeyahay Jaamacada Galis anigu waxaan 2010 iyadoo hal faculty baan ogaa maanta waan ku hambaliyeenayaa guusha ay gaareen dhamaantiin hambaliyo marka hore marka labaad waan idin bishaareynayaa taaka waxaad qalin jabinaysaan sanaduhu way kala hooda badan yihiin runtii taaka waxaad qalin jabinaysaan iyadoo fursado badan ay hareerihiina yaalaan waxaan kala u mahadnaqayaa Jaamacada Galis oo runtii door muhiim ah kaga jirta guud ahaan waxbarashada iyo tayeynta tacliinta ee qaranka gaar ahaan faraceeda Burco waxaan leeyahay idinkuna aad baa u mahadsantihiin ardayda Jaamacada Galis 206 waa hambaliyo maanta dalkan idinka wax u bartay la idinka fadhiyo inaad buug akhridaan aad buuga ku baastaan laakiin waxa la idinka fadhiyaa inaad hudistaan shaqooyin waxa la idinka fadhiyaa inaad dalka nabadgelyo sugtaan waxa la idinka fadhiyaa inaad qaranka u shaqeysaan Jaamacada Galis waxay maraysaa maanta Laascaanood waxay maraysaa Ceergaabo mar hore dhaaftay Hargeysa iyo Galbeedna hadalkeeda daa haddii aanay jaamacadaasi jaamacadaha wax dheerayn intaas oo gobol kamay furunteen waa dadaalka macallimiintiina ugu dambeyntii ardaydii qalin jabiyay ayaa halkaasi abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.